بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومدكو كلا دوان wax kasta xitaa fikirka wax isdilaya iyo wax haysta iyo wax istilaafeynayna ma aragno marka waxyaabaha ka baranayna meeshan waa inay ugu horeyso hadii la haydmo inaan isu dul qaadano inaan wax wada qabsano in ummadan maanta aan la noolahay ayna kula noolaa in dhalaan aan ka faa'iideysano aan ka barano sababtay u jiraan iyo waxyaabaha isku haya waa cilmi la barto way taa waxa keenaysaa marka in mustaqbalkii Soomaaliya dib looga asaaso dalkan hadda aan deganahay oo Soomaalida ugu badan caalamka maanta ay degan tahay tiro iyo tayo iyo aqoon inta ba haysan waxaan u baahanahay marka nin iyo koox la mid ah madaxweynihii Ghana ninkii loo oran jiray Nkrumah waad ka warqabtaan adduunku yimid wuxuu arkay ilbaxnimada iyo xadaarada adduunka markuu arkay wuxuu yiri waxaan iyo khayrkan iyo barwaaqadan waa inaan ku dabaqaa dalkaygii dib ugu noqday Afrika dalkiisii uu ka bilaabay xornimo gaarsiiyay dhaqaaqiisii Ghana waa ka warqabtaan ilaa uu noqday dalkii ugu horeeyay Afrika oo qaata xornimo madax banaan muusan hakan Afrika oo dib u baraarujiyay wuxuu yiri ka kac meesha waxa idinka maqan malab inaan haysan oo xornimo la yiraahdo sidaas ay nagu soo gaartay xataa haddaan nahay Soomaalida iyo Afrika inta kale halkan America marka waxa la doonayaa in aanu iska helno noo kaashanayna Yurub meelaha oo dhan rag taariikhda Soomaaliya dib u galaya gabdho wanaagsan oo taariikhdeena dib u qora ayaan u baahanahay kana hara waxyaabaha na ragaadiyay oo na reebay haddii aan ku sii jirno isqoqobka iyo farqufiiqa iyo reebel waxa way Soomaaliya runtii waa zuulayna runtii
hadda waxaan kusii soconnaa dariiq waxaan kusii soconnaa hadda markii Soomaaliya la yiraahdo si fiican aan u arki karin meeshaan kusii soconno haddayna isdaba qaban marka runtii waxaan muuqata inaan zuulan ilaahay baan ka magalnay qodobkaas Soomaalinimada aad iyo aad inuu weynaado weeye aad aan isugu ixtiraamno qalbigeena inuu ku weynaado taas Soomaalinimadaas aan uga harayaa dhulkii Puntland la yiraahdo aan muddada soo joogay Puntland runtii waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay dhul Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaami karaa Soomaaliya oo dhan baa degan si xornimo ah oo nabadgelyo ah gees ilaa gees ugu ganacsata ugu nool u degan dadku dhan waa wareystaa waan dhex galaa dadku waxay dareemayaan Soomaalinimo magac ahaan Puntland waxa weeye Puntland waxay ka mid tahay Soomaali weyn siyaasadda ismada Puntland iyo dawladdu iyo shacabkuba waxaan kulligeen isku wada waafaqsanahay Puntland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya haddii marka dalkii uu burbursan yahay hadda waxaan maleynayaa inaan cidna oran karin Puntlandna dadka intaad ka hala burburto cidma oran karto waxa weeye marka waa guri Soomaaliyeed weeye wuxuu diyaar u yahay qof kasta oo Soomaaliya oo wuxuu kusoo kordhinaya nabadgelyo iyo wanaag iyo horumar ayuu diyaar u yahay waana kusoo dhaweynaynaa 100%. runtii dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya Puntland lafteedu kama marna xoogaa nabadgelyada unbay dhaantaa waxaad ka warqabtaan in lagu dilay rag ka tirsan baarlamaanka ilaa 3 nin maxkamadda ugu sareysa ninkii xukumay ilaahay ha u naxariisto isagana waa la dilay oo ka warqabtaan dad badan oo isku dayay baa jira saas oo kale marka shidadu way soo gaargaaraysaa laakiin dhammaan dadka dhulkaa degan waxay kulligood ka siman yihiin inay nabadgelyada adkeeyaan walaalahooda kale ee dhulka xoogaa nabadgelyadu ka jirtana in la gaarsiiyo nabadgelyo iyo qalbi wanaagsan iyo duco inta ayaa ka go'an dadka maamulka runtii hadda meesha ka jira wuxuu ka yimid maamullo ka horreeyey saa ka warqabtaan ilaa caqligii asaasay Puntland oo dhan waad ogtihiin oo runtii aada loogu aayay maanta maskax aada u weyn baa ka dambeysay waad ka warqabtaan ilaahay waxaan ugu baryaynaa miisaanka xasanaadka ilaahay inuu ugu daro maxaa yeelay qofkii wax wanaajiya yani waa loo aayaya maamulkii ka dambeeyeyna saas oo kale cidna wax maha karan cid walba waxay qaban kartay ayay qabatay maamulka maanta jirana wuxuu aada iyo aada u horumarinayaa afkaartii iyo wadajirkii iyo waxwadaqabsigii soo socday ayuu isaguna horumarkiisii iyo casriyeyntiisi ku mashquulsan yahay gobolka la yidhaahdo mudug oo aad ka wada warqabtaan waxoogaa dhibaatooyin loo jeer ka dhacay dad walaalaha baa degan oo isku dhaqana oo isku diina oo isku taariikha ayaa degan guud ahaan dadku dad dhibaato doonaya maaha laakiin waxaad dareemaysaan Soomaaliya halka maanta waxaa gaarsiiyey ashkhaas runtii dana gaara iska leh oo ay noloshiiyo ganacsiga ula galay dadku isku horkeeda dadka noocaasa marka shacabku waa ku baraarugsan yahay waana ay og yihiin waxaanay ku ballansan yihiin inay nabadgelyada maanta ay haystaan iyo walaalnimadii inay wada adkeeyaan waxoogaaga ama mar iska dhexdhaca wax ka weyn bay maareyn jireen weligood inay maareeyaan oo ay nabad ku noolaadaan ayaa ka wada go-an annaguna intaasaan taageersanahay 100%. maamulka ka jira hadda magaalada gaalkacyo runtii waa maamul aada u shaqeynaya waxaan aada uga mahad celinaynaa dowladda Puntland taageerada ay taageerayso dadka ciddii wax wanaagsan qabanaysa in si wanaagsan wax loo soo xulo in lagu ixtiraamo ismada waxgaradka
dadka xilka qabanaya inay xulaan oo ay shiilaan si qof saxa uu dadka u hor yimaado tallaabada marka dowladda aad iyo aad baan ugu taageersannahay waan ugu mahadinaynaa 100% annagu haddaan ismadanahay marka doorkeenu waxa weeye inaan nabadgelyo ilaalino shacabka inaan u danayno shacabka inaan u hadalno in loo daneeyo guud ahaan meelaan joognaba Soomaaliya waxa weeye ninka haddii geelisa la dhaco waa ka warqabtaan duulaan buu qaadaa markiiba maqayl af ku shubtaa ismada Soomaaliya shacabkooda waxaa ka qaatay nin qori haysta oo wax ku wanaajinayn marka shacabkeena inaan dib u soo celino oo wacyi gelino oo nabadgelyada